dadku waxay weligood isticmaali jireen wadooyinka laga soo bilaabo qarnigii 14aad wixii ka dambeeyay tiknoolajiyadu waxay ahayd mid inta badan isbedelaysay tareenkii ugu horreeyay markaad aragtid muuqaalkiisa waxba ma ahan marka loo fiiriyo kuwa hadda jira waxayna kala gooshaan masaafo dhan 1 milyan oo kiiloomitir mana ahan mid la yaab leh tareenkana waa mid ka mid ah gaadiidka ugu amniga badan ee lagu safro laakiin mararka qaar waxa uu la kulmaa shilal waxaana ku geeriyooday dad aad u badan haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah wadooyinka tareenada ugu halista badan gudbino muuqaalada cajiibka ah la yaabkana leh ee ku faafay internetka iyo sidoo kale sawirada la yaabka leh waxaana jira dad idhahaya maajanalkan noogu soo gudbisay taariikhda iyo barnaamijyada dhacdooyinka ah inaan ku shirkadda adeegyada tiknoolajiyadda ee Yoltech haddaba kala xiriir nambarada ku muuqda booqana website-kooda Yoltech your way to wadadan 135 sano ka hor sanadii 1884 dhismahan injineerada dhisay waqtigaasi qadiimka waxaa loo aqoonsaday inay ahaayeen kuwa cajiib ah wadadan tareenka waxay ku taalaa gobolka Colorado iyadoona marta buurta lagu magacaabo Clear Creek Rocky waxaana la joojiyay wadadan inuu maro tareenka sanadii 1939 laakiin dib ayaa loo furay haatan dadka dalxiisayaasha ayaa u raacay Georgia qof kastoo go'aansada inuu dalxiis u aado halkaasi waa inuu u diyaar garoobaa caqabadaha ka jira halkaas mana lagula taliyo dadka aadka uga cabsada meelaha dhaadheer in ay raacaan tareenka maxaa yeelay buuraha uu marayo ayaa ah kuwa aad halis u ah oo qofka argagax gelinaya buundada Bamban Hindiya wadadan tareenka ku safrideedu ma ahan mid ay jecel yihiin dadka ka cabsada biyaha Rameswaram waa magaalo yar oo aad u qurux badan taasi oo u jirta dhowr kiiloomitir jasiiradda India ee mainland waxaana la dhisay buundadan tareenka sanadii 1914 iyadoo oo noqotay buundadii ugu horeysay ee dalka Hindiya waxaana loo aqoonsaday buundada tareenka ugu dheer ilaa 2010 waxaana dhirkeedu gaarayaa 2065 mitir taasi oo ah mid biyaha dul marta waana buundada labaad ee ugu dabaylaha badan adduunka marka laga soo tago tan Florida iyadoona ah mid aad u halis badan waxayna biyaha ka koraysaa 12.5 mitir biyahana waxa ay leeyihiin dabayl xoogan iyo hirar 23 bishii November sanadii 1964 waxaa ka dhacay buundadan shil tareen kaasi oo ay ku geeriyoodeen 150 qof waxaana arki kartaa hirka garaacaya buundadan inta uu leeyahay The Death Railway wadadan tareenka ma jirto cid si sax ah kugu sheegi karta magaceeda maxaa yeelay haddii aad baartid waxaad arkaysaa magacyo badan oo ay leedahay oo kala duwan waxaana wadadan lagu naanaysaa The Death Railway mana ahan magaceeda saxda ah midda kale wadadan way iskaga lugayaan dadku iyaga oo aan wax cabsi ka qabin tareenada waana wadada ay dhisitaankeeda ay ka dhalatay dhibaatooyin badan iyagoo ay la soo gudboonaad shaqaalihii ka shaqeynayay dhismahan xaalad adag kuwaas oo ay soo wajahday daawo la'aan xanuuno iyo baahi badan kuna daalay shaqadii waxaana ku geeriyooday dad gaaraya 6,000 oo qof kuwaasi oo u badnaa Aasiyaan qaar kalena waxa ay ka soo kala jeedeen wadamada kale ah Australia USA iyo Netherland waxaana u badan wadadan isticmaalkeeda dalxiisayaasha Gotiak Viaduct Myanmar wadadan waa mid ka mid ah wadooyinka tareenada ugu halista badan lehna buundo aad u dheer taasi oo isku xirtay magaalooyinka Laashio iyo kuwa kale ee Myanmar waxaana la bilaabay dhismaha wadadan sanadii 1899 waxaana cajiib noqotay in wadadan lagu dhameeyay wax ka yar hal sano waxayna gaaraysaa buundadan dhirirkeeda 689 mitir halka ay dhulka ka sareyso 112 mitir waxayna ahaayeen injineeradii dhisay kuwa aan caadi ahayn waana buundada ugu dheer Myanmar laakiin markii la dhisay waxa ay noqotay buundada tareenada ugu dheer adduunka haatan waxa ay soo jiidataa dadka dalxiisayaasha ah mana ahan mid la yaabo aad ay soo jiidasho u leedahay haddii aadan ka cabsanayn dhirirka waxaad kor ka daawan kartaa dhulka uu marayo tareenka tareenada ku safra wadadan waxa ay ku socdaan xawaare aad u yar Langwasser Switzerland wadadan tareenka waa mid aan caadi ahayn waxaana markii dambe aqoonsaday hay'adda loo yaqaan UNESCO oo qaabilsan hidaha iyo dhaqanka wadadan tareenka ayaa ah mid aad u qurux badan oo laga qaado sawirro inta badan kuwaasi oo loo isticmaalo xayisiin meesha ay marto wadadan tareenka ayaa ah mid caan ah waxa ayna gaaraysaa buundadan dhirirkeeda 136 mitir halka ay dhulka ka sareyso 65 mitir waana wadada tareenka ku taala bariga wadanka Switzerland waxaana maalin kasta mara 6 tareen hase yeeshee waa mid laga cabsado maadaama ay aad u dheer tahay Takamori Line Japan tani waa wada kale oo tareen taasi oo aad halis u ah waxayna ku taala dalka Japan gaar ahaan Kumamoto halkaas oo ay ku taalo meel ay volcano ka qaraxdo
waxaana la rumaysan yahay in wadadan ay marto meel halis ah. markii ugu horeysay waxay ka qarxday volkaanada 2016 laga soo bilaabo xilligaas waxay noqotay mid khatar ah waxayna dawladda go'aansatay in ay joojiso isticmaalka wadadan tareenka. haatan waa mid xiran oo dhulgariir xun ayaa ka dhaca, wax tareen ahna wadadan ma maro. Belgrano, Argentine. wadada ugu dambeysa maanta waa mid aad u xiiso badan. wadadan Belgrano waxaa kaloo loo yaqaanaa C14 line, waana wadada shanaad ee tareenada ugu dheer adduunka, waxayna ka sareysaa oogada dhulka 4220 mitir. intaasi waxaa u dheer inay tahay mid ka mid ah wadooyinka tareenada ee ugu dheer Argentine, waxaana la furay 71 sano ka hor sanadii 1948 iyadoo ay isticmaalaan